Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada war degdeg ah. Magaalada madaxda Itoobiya ee Addis Ababa oo gubanaysa kadib markii ay qaraxyo ka dhaceen xabadda oo ka socota magaalada gudaheeda. Dhanka kaleeto gobolka Axmara magaalada madaxda oo iyadana ay qaraxyo iyo kadaalika ay ka dhaceen xabadda oo ka socota. Waxaad moodaa dagaalkii inuu sii fadahayo Itoobiya. Waxaad moodaa inay nimankii Tigray ahaa ay khatar ay geliyeen sida aad arkaysaan ama lagu soo warramayo. Xabadda oo ka socota magaalada madaxda Addis Ababa gudaheeda waa arkaysaan. Itoobiya dowlad weyn oo in badan soo dhismayd ayay ahayd oo qadiimi ah. waa waddanka population-ka ugu badan ee kaalinta saddexaad ee Afrika kaga jira. cadowgeena koowaad ay ahaayeen waagii hore. Hadda maanta tii ay inagu samayn jireen iyaga ayay ka dhex dhacaysaa. waa arkaysaan xabadaha ka socota magaalada gudaheeda Addis Ababa. sidii iyo kadaalika magaalada madaxda gobolka Axmara xabadaha ka socota iyadana qaraxyo waaweyn baa caawa ka dhacay sida lagu soo warramayo. Itoobiya wataa waa ujeedaan way gubanaysaa. in badan ay madaafiic ka dhaceen Muqdisho, in badan ay nagu soo gardaroodeen, in badan ay ummadda Soomaaliyeed ay gumaadahayeen. haddana waxa aad moodaa Itoobiya in ay kala dhaqaaqday. waa in loo diyaar garoobaa qaxootigooda, waa in loo diyaar garoobaa. waa arkaysaan wixii kasoo kordha gadaal ayaan kasoo sheegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.